maalimihii u dambeeyey roobkii ka da'ayay magaalada Hargeysa waxa ay waxyeello ballaadhan gaarsiiyeen xabaalaha Baqiic oo ku yaala waqooyiga magaalada Hargeysa. Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xiire Aadan Siire oo gacanta ku haya maamulka xabaalahaasi oo isla xabaalaha dushooda ka hadlay waxa uu ka warramay xabaalaha ay dhibaatadu soo gaadhay. roobabka raxmadda badan ee da'ay wax badan baa ka soo gaadhay xabaalihii. xabaalaha dumay waxaanu doonaynaa inaannu la hadalno dadkii ka wakiilka ahaa xabaalahaasi si runtii xabaalahaasi wax looga qabto. inkastoo dad badan oo wanaagsan oo meesha xabaalahoodii aasas meesha ka socday wax badan ay ka qabteen oo aanu leenahay jazaahum allahu khayran wa axsana ilayhim oo runtii ilaa saaka ay ka shaqaynayeen, laakiin waxaanu ku baraarujinaynaa dadkii mas-uulka ka ahaa. xabaasha koowaad nambarkeedu waa 2705. xabaasha koowaad ee u baahan in wax laga qabtaa waa 2705. Muxiidiin Ciildheere ayaa runtii mas-uul ka ahaa xabaashaasi. nambarkiisu waa 4472522. nambarkiisu waxa weeye waa 4472522 weeye. waxaanu leenahay xabaashaas soo gaadhaad mas-uulka ka ahayd. dad badan baa wax ka qabtay, laakiin si wanaagsan oo habaysan wax uga qabo baaraka allahu fiik. xabaasha labaad nambarkeedu waa 2650. 2650 waxaa mas-uul ka ahaa Jamaal Maxamuud Ismaaciil. Jamaal Maxamuud Ismaaciil nambarkiisa telefoonku waa 41175119 waa 4117519. waxaan leenahay xabaasha aad ka mas-uulka ahayd ee nambarkeedu uu yahay 2650 waxay u baahan tahay in wax laga qabto. xabaasha saddexaad nambarkeedu waxa weeye 2776. waxaa ka mas-uul ahaa oo wakiilnimo ugu qoran Haybe Xasan Jibriil baa mas-uul ka ahaa. nambarkaagu waxa weeye waa 44736863 4473863. xabaashaa waxaanu jecelnay inaad wax ka qabato baaraka allahu fiik. xabaasha afraad waxa weeye 2898. waxaa mas-uul ka ahaa Muuse Maxamuud Abakor. telefoonkiisu waxa weeye waa 3 weeye. haddaad wakiilkii tahay xabaasha inaad u soo gurmato ayaa laga maarmaana baaraka allahu fiik. xabaasha shanaad waxa weeye waa 2771 nambarkeedu. Axmed Jaamac Maxamed ayaa ka mas-uul ahaa. nambarkaagu waxa weeye waa 4462233. xabaashaasi waxay u baahan tahay in deg deg wax looga qabto. xabaalihii dadkii joogay ee khayrka badnaa baa wax ka qabtay, laakiin inaad timaaddo oo aada habayso oo wixii ka dhiman aada hagaajiso ayaa lagaaga baahan yahay. xabaasha lahaad waxa weeye 2933. waxaa ka mas-uul ahaa Anwar Maxamed Maxamuud. nambarkaaguna waxa weeye waa 4773154. waxaa loo baahan yahay xabaashaasi in wax laga qabto baaraka allahu fiikum. xabaasha toddobaad waxa weeye waa 2949 weeye. 2994. waxaa mas-uul ka ahaa Cabdinaasir Mawliid Allaale. nambarkaagu waxa weeye waa 4409587. 449587 baaraka allahu fiik. xabaasha sideedaad waxa weeye 2956. cali aw cigaal jaamac ayaa ka mas-uul ahaa. nambarkaagu waa 44658
40 xabaasha waxaa la doonaya inaad degdeg wax uga qabato baaraka allahu fiik xabaasha sagaalaad waxa weeye 2973 nabarkeedu maxamed ibraahim saleebaan ayaa ka mas-uulahaa nambarkaagu waxa weeye waa 441963 weeye 441963 xabaasha tobnaad waxa weeye 2874 maxamed biixi maxamed ayaa wakaaladeeda iyo mas-uuliyaddeeda lahaa nambarkaagu waxa weeye waa 411831 xabaasha baaraka allahu fiikum hore wax uga qabta xabaasha 11aad waa 3347 cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ayaa ka mas-uulahaa nambarkaaguna waxa weeye waa 38000306 xabaashaasi waxay u baahan tahay in degdeg wax looga qabto baaraka allahu fiikum xabaasha 13aad waxa weeye waa 3251 weeye nambarkeedu magaca hore ayaa qaldamay laakiin ina ibraahim magaca dambe ninka mas-uulka ka ahaa waa magaca aabihii waa ibraahim magaca hore inanka ayaa si yaroo adigu ma garatay magacu aanu saxayn wuxuu qoray telefoonkaagu waa 440148 440148 baaraka allahu fiik xabaashaasi wax ka qabad bay u baahantahay xabaasha 14aad waa 2696 maxamed ismaaciil ayaa ka mas-uula nambarkaagu waa 44700125 14 xabaalood baaraka allahu fiikum ayaa maanta u baahan in wax laga qabto xabaalahan waalidkeennii baa ku aasan dadkii aynu jeclayn baa ku aasan waxaanu ku liirinaynaa dadka khayrka badan leh ee aanu magacyadooda sheegnay iyo tirooyinkooda xabaalaha dad joogay baa wax ka qabtay xabaalihii dumay qaarkood laakiin iyaguna meelo badan oo kale ayaa runtii ciiddii laga qaado oo laga baqanayaa runtii haddaan ciiddii dib loo buuxin in kuwa kale waxay gaadhaan dadkeennana waxaanu u sheegaynaa marka wax laga qabanayo xabaalaha waa inaanad xabaal kale biyo ku furin maxaad soo kordhisay haddaad xabaashaadii hagaajisay oo aad xabaal kale ciiddeedii soo qaaday ama aad biyo ku furtay oo xumaad soo kordhi dadku waa wada dadkeennii waa dadkii waajibka ay nagu ahayd inaynu u shaqayno ifii aakhiraba lagu liibaanayey waa xuquuqda asaasiga ee runtii ay nagu leeyihiin marka ballankeennu waxa weeye in loo soo dadaalo si wanaagsan wax looga qabto ciiddana u soo qaado oo annaguna waxaanu ku dadaalaynaa dhowr looloo ciida inaannu keenno oo aydan ciiddan meesha gudaheeda ee keenaysa inaa god kala samaysaan ama xabaal kale aa ku furtaan dhibaatadeeda aynu yarayno oo ama ciidda dibadda uga keena ama allahuma salli calaa sayidina maxamedin ciidda meesha la dhigo ugu shaqeeya in badanna waannu idinkala hadalnay xabaalaha dumay 90% waa xabaalihii deyrka loo sameeyey deyrkaasi biyuhu u qabanayaa masaafadii aynu ugu tala galnay xabaasha ayuu qayb dhan ku darayaa oo runtii xabaalihii iyo dhulkoo dhan xabaalo ka dhigmaynee dhulkiibuu soo yaraynayaa waar labankaaga iska hayso wastaadka aad ku dirayso kharashkeeda iska hayso biyo shubka caadiga imanka kuwa dumay 90% waa kuwaasi